halkani waa raadiyo kulan. maanta waa maalin sabti ah, maalinta joognana waa 23 sanadkan waa 2010. waxaa toddobaadka wareysiga u martiya maanta mudane maxamed xuseen cawaale oo khadka telefoonka ku wareysanaya isagoo magaalada Denver ee USA ku sugan. mudane maxamed xuseen, horta soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وان ما سنتهي ولال وانا أدبنا مدنتهي maxamed xuseen cawaale, marmar baan kaan akhrisanaa jaraa'idaad soo saartid, shabakadaha ku soo saartid maadaama geeska afran ku saabsan. bal dadka ku akhrista ku dhageystana marmar ku hadashay, bal isku macnee ayaa tahay. aniga horta waxaa la yidhahdaa magacaygu maxamed xuseen cawaale. waa runtaada ilaa muddaba waxa aan qoraallo ka soo saaraa khadadka ka mid ah khadad badan oo ka mid ah shabakadaha internetka, oo weliba luqadahaasi aan ku qoro inta badiya luqadda ingiriiska, anoo ka kala hadla arrimo badan, siiba u bato Djibouti oo dalkeena iyo arrimo badan oo bulshada qaabilsan. gartay mudane maxamed, horta waxaan maanta inaan kaa wareysanaa rabnay maadaama halkan khadka telefoonka ku wareysanayno 3 mawduuc oo ku saabsan Djibouti. topic horeeya waxa weeyaan shaqaalaha Djibouti ee reer Djibouti ee Djibouti waddanka Djibouti ka shaqeeya. waxaan jeclaynaa badnoera talaasuun naga yarasiisid. topic labaad waxa weeyaan madaxda Djibouti siiba wasiirada oo aad moodid wixii dhaqaale ah, wixii shaqaa, wixii wax ka soo baxay doonayba in iyagu uun gacantooda ay ku jirto dad kale la wadaagin. marka saddexaadna waxaan rabaa inaad wax yar nooga sheegtid saraakiisha Djibouti, wasiir ahaadaan, xildhibaan ahaadaan, oo ciyaalkoogii, dadkoogii iskoolkii Djibouti ay xabadna ka dhigan oo amba private school private ay u diraan amba dibadaha ay u diraan. kolka waxaan ku horeynaynaa xagga shaqaalaha ajnabiga waddanka Djibouti ka shaqeeya, bal sidee u dhacdo nooga sheekay bal. horta waa runtaada, waxbaan ka taataabtay qoraalkayga u dambeeyey oo uu ahaa diiwaanku adeecadda cusub ee codka Djibouti ma noqon karaan mid mas-uulad ah, waayo qoraalkaasi baan kusoo qaatay shaqooyinka shaqaalaha cusub ee Djibouti la keeno. markii aan tegay Djibouti horta anu 2005 dabeeqadeedii ilaa 2008 intii u horeysay baan joogay. waxyaalaha aan la kulmay anu aad aan la yaabo, walaahi calooshana aad ii dhaawacda waxaa ka mid ahaa dhalinyarta reer Djibouti oo maanta waddankeeni dhalinyaro aad u khibrad badana, cilmi leh, haddana shaqooyinkii waddanka kasoo baxay baan loo ogolayn. maxaa yeelay horta haddaan laba u kala saaro, mid waa shaqooyinkani mataqaanaa bayac musharada, waxa keenay waan fahmi waayey. anu waxaan u arkaa un xanuuno maaragtay maskaxda ka yimaada. dadkii dhalinyartii reer Djibouti oo bilaa shaqaa baad arkaysaa hindi la qoranayo, carab la qorayo, iyo kuwo weliba mataqaanaa France laga keenanayo, oo waxaad u moodaa inay jecel yihiin gaal baan maaragtay directeer u ah oo gaal baa la shaqeeya. maxaa yeelay xagga hindida haddaan eegno wadanadeena 70-adiiba hindida la keeni jiray sida ay xisaabaadka amba afka qaarad loo yidhaha contabilityga ay uga shaqeeyaan, maanta uma baahnin. qodobka la yidhaahdo code de travail Djiboutina, code de travail amba qodobka 29aad wuxuu sheegayaa, oo haddii de sharciga lagu dhaqmayo oo reer galbeedkuna ay sheegaan, haddii la waayo shaqada loo baahan yahay qof reer Djiboutiya ama dhalinyara oo shaqada takhasus ku ah ama aqoon u leh, in la qaadan karo un qof ajaanib ah. laakiin maanta contable oo xisaabaad uu sameynaya Djibouti lagama waayo. waxaa hindi loo qaato oo visa loo soo siiyo inuu waddanku yimaado, ay bacmisharadu u qaataan. carabtuna dukaanadoodu markuu shaqa soo baxdo inuu Yaman uga yeedho yaraan u fahmi waayataa, inay dawladdana u ogolaato ay siiso, waayo dawladdii mas-uuliyad u tahay inay ka difaacdo dadka. qaybta labaad
waata maaragtay dekadaha Djibouti dekada weliba siiba imika cusub hindi waxaad arkaysaa indhayar waxaad arkaysaa Philippine marka waxaad soranaysaa war dadkii xitaa dhismihii war dadkii reer Djibouti sidee rabaan dadka inay u noolaadaan oo xagee wax ka keenayaan marka dad ajaaniba lagu dul keeno marka aad weydiisan waxa ku oranayaan war reer Djibouti ma shaqayso de kan doqonkeena reer Djibouti ma shaqayso isagu muxuu yahay muna reer Djibouti hay marka isagu ma shaqaysa ka dhigan tahay de gartay maxamed kolka reer Djibouti aqoon kama maqno waa dad jaamacad ka soo baxay wax bartay oo skill afka qalad kolka lagu sheego maxaa looga tallaabsanayaa reer Djibouti ajnabi loogu wareegaya wallahi horta ilaahay baa garanaya maaragtay qof kasta wixii aqligiisa ku jira laakiin se anigu marka aan arrinka aan daba baadhay anigu qof waxaan ahay shakhsi yar jecel marka wixii i dhibo inaan raadiyo maxaa ugu wacan waxaan soo ogaaday horta inuu xanuun yahay xanuunkaasina waxaa keena waxaa laga dhaxlaa gumaysiga waxaa jira nin la yidhaahdo dhakhtar oo Dr. Francis Fanon la yidhaah qoraadadiisa wuxuu ku sheegay qofku marka la guumaysto waxaa ku dhaca wax la yidhaaho nacaybo shakhsiyeed qof markuu isagu isnacab yahayna wax qofka u eeg wax la wadaaga luqad la wadaaga diin la wadaaga iyo wixii mataqaana isaga kamid uu necab yahay anu markaa waxaan ka dareemay markaan waayo qof iska su-aalo badan baan su-aalahana de ilaahay baa qofka qalbigiisa wixii ku jira garan kara laakiin qofka biniaadamka waa inuu weydiiyaa si uu ogaado war reer Djibouti ma shaqaystaane war reer Djibouti hadii shaqaysta reer Djibouti soo adigu kama mid batii adna markaa ma shaqaysatay bay ka dhigan tahay laakiinse mas-uuliyaddaas waxa u taalaa dowladdu haddayna taa wax ka qabanaynin dee laguma dul gaajo dadkii wadaniga kuma dhimanayaan oo wadankii kama yaacayaan dad ajaanibana markay shaqa soo baxaan lagu dul keeni maayo taasina shacibka reer Djibouti taala ay iskaga dhici karayaan waan fahmay waxaan maxamed u wareegaynaa xagga saraakiisha Djibouti siiba wasiirada oo dadku kolka saa loo arko waxaa la moodaa wixii baa mushtariya wixii doonaya waxaasoo dhan inay qadaraas ba ahaatoba waxaad moodaa inay wasiirgun awood u leeyihiin ayagu qaataan ay maroosano shicibkii waxba ay gaadhin maxaa sidee loo macnayn karayaa taana bal horta waa nasiib daro su-aashaad weydiisay waa runtaada horta qoraalkaygana articalka aan ku daabacay Somaliland Press website leedana waa runtaada wax waan kaga taataabtay waayo maxaa igu wacan horta mar dhexdii aan Djibouti joogay waxa dhacday oday iskorogale inaan uga turjumaano boorka Djibouti markii la dhisay Doorale oo iskorogadiisa laga soo saaro markaan ugu tagay niman waxa dhisayay maartay company Braziliana in markuu aan soo baxan oo yiraahdo iskorogada markaysa wasiir hebel baale iskorogada kale wasiir hebel baale maxay ahayd baska colonel hebel baale alaabtan kale markaas ay warday inagu idila ku shaqeysay shaqo kale ba haysan nimankan kooraan ma bixiyaan biyo ma bixiyaan kara ma bixiyaan lacagta waddanka oo dhan bay haystaan marka wixii yar soo baxay ma inay garab yaacaan wuxuu cildi anaga ma weydiiso waxba inay ubadkiisa ku qortaan islaantiisa ku qortaan mid kale ku qortaan marka hadii madaxweynaha dalka maartay maamulo shaqada hawshaas u taala hadii uu isagu ogol yahayna de waa waxa weeyaan qofkii dadkii inuu reerkiisa ku biiliyaha haduu gidaar ka jiifo oo marka ay shaqa soo baxda la garab yaacayaan iskorigooyin taasaan horta soo arkay caloxumana way igu dhalisay waxaan u arkay mataqaana arrin maartay hadii laga tanaasuli waayo ay dan ay wadanka u hayn madaxweynuhuna de haduu de una dhageysanayo horta nin baa waayiri ninna waa nin hurda ninna waa nin iska yeelaya nin hurda wala toosi kara nin iska yeelaya laba toosi kara ilaahay una toosiyo marxaba kolka maxamed ma waxaad u malaynaysaa meeshaas inay cadaalad jirin oo maanta hadday xisaabay jirto oo maamul fiican jiro waxaa simay ku dhaqaaqi kalayn wasiiradu horta dalkeeni maanta nasiib darro cadaalad ka dheer dad anagu waxaan nahay horta xeer ku soo dhaqman dadku markay xeer ku dhaqan yihiin horta ilaahayna maarta la garab galaa laakiin Djibouti xeer kama dhow qofka been isku sheego anigu horta nin ilaahay baan ka cabsaday nin cabsado meey markaan maxkamadii Djibouti arkeen markii horeysan tagay horta xaraan baa gali jiray meesha imika la dhisay gidaaradiisa la qurxiyo ranji la mariyay laakiin wax xeer meesha ka jira ma jiro dalkiina nasiib daro wuxuu noqday madaxweynaha Ismaaciil Cumar inuu noqdo xaakimkii inuu noqdo kii wax kala saaray madaxweynihii wadanka de miduna ku ogaado isagu ama madaxweynaha noqdo
amba xaakina noqdo maxkamadanu inay madax banaanaato hadduu xeer horta ma jiro ninka ku yidhaha xeer baa jira reer Djibouti maanta waxaan oo kale laba yihiin wiil markuu cashada ku jiro uu nuugayo waxa ma jiro yidhaah iyo wiil marka afka wax laga qabto yidhaahde dhibaataa jirtay cabaada inta horu meesha ku jirana ma hadlo anigu weli dhooqadaana ma gelin oo cashadaana ma gelin waxaba ka cabsadaa baan qodhan marka waxaan jira alaabtani ma kol haddii irbada lagugu mudo ma adigu ma saasa kugu dhici doonta laakiin xeer ma jiro meesha waxa kama jiraan